xafladan oo ahayd xaflad siyaar sare loo soo agaasimay ujeedkeeduna uu ahaa in abaalmarin lagu guddoonsiiyo kooxihii ku guuleystay horyaalka heerka koowaad iyo labaad iyo sidoo kale xafigii ku guuleystay kaalinta koowaad iyo labaad ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha degmada Walaweyn gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada xubno ka tirsan maamulka iyo sidoo kale isku duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo sportska Koonfur Galbeed Soomaaliya ee degmada Walaweyn gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Walaweyn iyo sidoo kale gudoomiyaha Olimbikada degmada Walaweyn gudoomiyaha degmada Walaweyn mudane Maxamed Siido Cabdiraxmaan oo ugu horeyn goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka soo qayb galay xafladan isla markaana wuxuu u mahadceliyay dhammaan intii ka qayb qaadatay tartamadaasi iyo sidoo kale jaaliyadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee North America ma aad in faraxsanaa in geeg uu isku qayb galno xafladii ka saabsanaaytay tartankii ciyaaro kubadda cagta ee degmada Walaweyn ku socdeen oo ahaayeen kullee 3 qaybood tartankii horyaalka ee degmada Walaweyn tartankii xaafado ee degmada Walaweyn iyo kooxihii seer biid degmada Walaweyn koobkii oo jaaliyadii dhikaan oo ka guuleysay kooxdii onkod aad iyo mahadsan yahay jaaliyadii macnaha soo abaabuli oo barnaamijkaas sportska in soo biidi aad iyo mahadsan yahay marka oon maamul ahaan mar walba walaaguna awoodno ama siin qabada korna inaan siin saacidno suuq ballan qaadan sidii awal bin soo biidi jirnay walaal dhaqaale una awoodno nabadgelyo ahaato farsamo kale ahaato dhammaan diyaar si leena sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in tartanka xaafadaha uu ka xamaasad badan yahay tartamada kale isagoo la kaftamaya dhalinyaradana wuxuu yiri tartanka xaafado macna qiimo leey ma male kooxaha xaafado ku xamaasad badan saas ma tartanka xaafado xamaasad badan laba qofood oo walaal ah hadda ma way shalay darad malable iyo meelahaas waa bari link boortieriga iyo inta kale taa ayaal waa bari inta jiraan qaar malable inta oo waxa nin xaafadii markaas u degan laba qofood walaal ah lamada iyo xaafada shal taageerayeen kin xaafadan u saad markaas degan taageera kan xaafadan markaas degan iyo taageerayeen tusaale ahaan ayaalkii reer Shariif eelay markii isku qaban ya qaar waa bari mintitingayaan قارن ملبلا من تتنجيان أباست واي قبيل مبنى ميل قبيل أجره معنا بس حافظ واي وهذا فيلاند والله لك فرح واي حافظه كل الناس عمل اللي مديان أنا تبين إن شاء وحافظه وبري تاجر هاي غير وبري هاي لأنه أتكاذي يا لأنه أتكاذي معنا ملبلا لما أسكت لكان نو أغلب بديان لما عيبوري يميننا ما لوس ملبله لما لوضع كديلين وبر حلو لك ديلا سلين قيامي marka xaafado kale asaas weeli sidoo kale isku duwaa wasaaradda dhalinyarada sportska Koonfur Galbeed Soomaaliya ee degmada Walaweyn mudane Cabdifataax Sheekh Abuukar gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Walaweyn Umar Maxamuud iyo sidoo kale gudoomiyaha Olimbikada degmada Walaweyn Ali Taatika ayaa iyagana sheegay in sportska yahay waxa kaliya jir iyo maskax ahaan dhalinta laga hormariyo degmada horta ma aadinka faraxsana garoonka biliciisa lama berlin muuji taasna ma inka wacna jaadka inta la rooji jaadka aqabad badan ahay waayo hada garoomaga may garoomanka amriyan ma sha Allah degmadii dhamay malatay degma sports waa shay kaliya qofka maskaxda indhisaw jirka indhisaw waa mar walba in ka dadaalo sportska oo mar walba ku shaqeyno degmada kali mu ku shaqeeyaa in maamulka ku shaqeeyma dadka degmada shaqeeyay faday waa dhalinyarada degmada sportska isticmaal soo ku faday in isim maamulka la shaqeeytaan degmadii horumarsataan degmadana cilmi maqan isaga maqan degmadii معنا حافظة وحماسة آتي على طلعتي مثل قال أيك بولي سدي حافظة أخبوري حنبري أكمل قلنا مثل حفلة الله أول مرة هتجيب رمى تجينا إن شاء الله تدوم كل القدوس القدوم آتي على الجامعة آتي هذا أنك فرحسنا عيارتودي وجاك شلي ديلاسي أخبوري آتي هذا أمهسيان وبرن وجعله إنه إنتاج كبرهم tartan soo suuqdo wabillahi tawfiiq ugu dambeyntiina gudoomiyaha degmada Walaweyn ayaa gudoonsiyay xaafada Agaboore oo ku guuleystay tartanka xaafadaha degmada Walaweyn kadib markii final isugu yimaadeen waa bari ay gooryaal kaga adkaadeen sidoo kale kooxda Turkish oo ayana ku guuleysatay tartanka kooxaha heerka koowaad iyo kooxda Bakaal oo ku guuleysatay tartanka heerka labaad iyo sidoo kale awalmarino kale oo kamid ah xidiga ugu wanaagsan tartanka xaafadaha iyo heerka koowaad iyo sidoo kale garsooraha ugu wanaagsan oo mar kale ku guuleystay Cabduqaadir Ibrahim
cabdiqani maxamed xasan telefishinka koonfur galbeed degmada Walaweyn.